kulanti wanaagsan khiyaarta nala socotay idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo tabinta barnaamijka wararka caawa iyo dunida ee faaqidaada Barrow Show qodobo xiiso leh ayaan idinkugu hayaa taariikhdu waa 8 bisha Oktoobar sanadkuna waa 2025 qodobada aan idin hayo oo dhinacyo kala duwan taaban doona inta badan waxa ay ku dul wareegi doonaan xaaladda siyaasadda ee gobolka Bariga Dhexe wada hadallada ka soconaya Sharm el-Sheikh oo hadda galay meel xasaasi ah haddaba xaggee wax marayaan haatan marka la fiiriyo xiisadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe waxa markan ay u muuqanaysaa in si dhab loo wajahayo marxaladda gobolkaasi in la xalliyo oo dhinacyada loolamaya ay meel isugu yimaadaan wafuud kala duwan ayaa gaaray magaaladaasi iyadoo maalintii saddexaad kulamo xiriira ay soconayaan maanta qodobo waaweyn oo xiiso leh ayaa shirka la ishordhigay waxaana ku biiray dhinacyo kale oo Falastiiniyiin oo ka madax bannaan Xamaas oo goobta soo gaaray waxaa sidoo kale yimid wafuud ka kala socota wadamada Turkiga Qatar iyo sidoo kale dalka Mareykanka waxyaabaha la isla soo qaaday maxaa kamid ah fariin adag ayay wadeen sirdoonka wadanka Turkiga oo kulankaasi maanta ku biiray agaasimaha guud ee hay'adda sirdoonka MIT loo yaqaano ee Turkiga Dr. Ibrahim Qalin ayaa kamid ahaa dadka maanta madasha fadhistay haddaba warar waaweyn iyo waliba xogihii ugu dambeeyay ee shirka ayaan idinla wadaagayaa muxuu caawa tabinayaa telefishinka Al-Qahira al-Ikhbaariya oo si weyn arrimahaasi u faaqidaya waan kuu soo koobi doonaa haddii Rabbi saamaxo madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku soo laabanaya wadanka Turkiga kadib booqasho uu ku gaaray Azerbaijan ayaa waxa uu daboolka ka qaaday sir ballaaran oo ku saabsanayd waxyaabo dhaxmaray dowladda Mareykanka iyo waliba Turkiga gaar ahaan Trump iyo waliba Recep Tayyip Erdogan oo saacadihii la soo dhaafay taleefanka isku wareystay haddaba muxuu yahay dhambaalka adag oo Turkidu ay ka shaqaynayaan iyo waliba fariinta sida gaarka ah uu Trump ugu dhiibay Ankara taas oo la xiriirta arrimaha Bariga Dhexe wariyaasha Azerbaijan waxay leeyihiin xogtan waxay ahayd mid naadir ah inaan helno laakiin Erdogan in booqashadii uu ku yimid wadanka kadib markii ay dhamaatay isagoo ku sii socda Ankara inuu nala wadaago waxay ahayd wax kale oo mudan sharaf kale oo ballaaran oo markan ay muhiim tahay in banaanka la keeno sirta labada dhinac ka dhaxaysa ee Bariga Dhexe ku saabsan ee hadda uu ka shaqaynayo Erdogan waa kula wadaagi doonaa inta waxaan ku dari doonaa haddii uu Rabbi saamaxo madaxweynaha wadanka la yiraahdo Masar General Abdel Fattah al-Sisi ayaa ku casuumay dalkiisa Trump in uu yimaado Sharm el-Sheikh waxa uu yiri heshiiskan dhadhan iyo macno maba yeelan karo haddii Trump uusan madasha fadhin oo uusan goobjoog ka ahayn waxa dhinacyada kala duwan ay isweydaarsanayaan waxa uu sidoo kale qeexay in marka si qoto dheer loo fiiriyo heshiiskan in la dhaqan geliyo ay muhiim tahay qalinka lagu saxiixayo dhinac inuu Trump ka hayo Sisi muxuu sarrifanayaa marka la fiiriyo diblomaasiyadda iyo wada hadallada halkaasi ka dhacaya barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan akhyaarta in nala socotay dowladda Mareykanka waxa ay si adag u canaanatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa lagu leeyahay waa dhamaatay ciyaar waa xilligii nabadda iyo wada hadalka wixii haatan ka dambeeyay Israa'iil waa inay aqbasho in miiska wada xaajoodka la isugu yimaado akhyaray soo dhawaada qodobadaas ayaan guud mar ku samayn doonaa haddii sidaad la socoteen Erdogan waxa uu ka mid ahaa mid ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn ee siyaasadda diblomaasiyadda iyo dagaalka ee gobolka Bariga Dhexe marka la fiiriyo xiisadan isbadbedelaysa ee hadba dhinac u jeesanaysa ee ku saabsan sidii loo soo afmeeri lahaa dagaalka dowlad kasta waxa ay ka dhaxriixaysaa halkaasi danaheeda siyaasadda iyo diblomaasiyadda ku saabsan halka kuwa ugu badan ay ka dhax fiirinayaan arrimaha amniga oo wax weyn ka saameeya dhaqaalaha iyo siyaasadda labadaba marka lagu akhriyo diblomaasiyaddana waa hubka ka culus gantaalada iyo waliba nuclear-ka dhinacyada qaar ay suuragal ka tahay inay adeegsadaan Erdogan isagoo maanta ka soo laabanaya wadanka Azerbaijan waxa uu ku dhawaaqay in madaxweynaha wadanka Mareykanka uu farta ka saaray fariin culeyskeeda leh oo ku saabsan in kooxaha hubaysan ee Falastiiniyiinta gaar ahaan dhaqdhaqaaqa Xamaas uu ku soo celiyo miiska wada xaajoodka iyo wada hadalka si loo soo gabagabeeyo colaadda muddada dheer ka taagnayd wakaaladda wararka ee Agence France Presse AFP
ayaa qortay in madaxweynaha dalka turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu ka codsaday in dowladdiisu ay ka hadasho arrimaha ka taagan gobolka bariga dhexe dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta ee Xamaasna ay ku qanciyaan inay aqbalaan ajandaha iyo hindisaha Trump uu soo jeediyay ee ku saabsan dhinaca nabadda ee gobolka bariga dhexe. Erdogan waxa uu sheegay isagoo la hadlaya saxafiyiinta safar uu ku tagay Azerbaijan ayaa waxa uu yidhi inta lagu guda jiray booqashada Mareykanka iyo wadahadalkayga taleefanka ee ugu dambeeyay waxaan u sharaxay madaxweyne Trump sida xal nabadeed looga gaari karo arrinta Falastiiniyiinta isla markaana si gaar ah uga codsaday buu yidhi waa Trump codsanaya in uu Erdogan la hadlo Xamaas kana dhaadhiciyo in ay aqbalaan ajanda kasta iyo qorshe kasta uu Mareykanku keeno gobolka bariga dhexe. Erdogan ayaa intaa ku daray kooxda waxay noo sheegeen inay diyaar u yihiin wada hadallo iyo nabad taas macnaheedu waa in aysan qaadan mowqif diidmo ah. Tani waa tallaabo kale oo qiimo leh. Waxaan u arkaa kooxdu in ay ka horumar badan tahay Israa'iil dhinac gaar ahaan marka loo yimaado xal nabadeed oo si degdeg ah lagu gaaro. dhinaca kale madaxweynaha Turkiga waxa uu sheegay in door firfircoon wadankiisa uu ka qaadanayo xalwalada dagaalada muddada dheer halkaasi ka taagnaa. wakiiladeena ayaa hadda ku sugan buu leeyahay Sharm el-Sheikh waa Masar. waxaan xiriir joogto ah la leenahay dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta sida ay u socdaan wada xaajoodkana indhaha ayaynu ku haynaa. waxaan sidoo kale wadnaa buu leeyahay wada hadalka muhiimka ah. waxa uu sharaxayaa sida ay ugu mashquulsan yihiin in la wajaho xaaladda dhabka ah iyo waliba in laga gudbo dhibaatooyinka haysta shacabka Falastiiniyiinta. hadalkan Erdogan waxa uu ku soo aadayaa xilli xasaasi ah oo magaalada Sharm el-Sheikh ay ku kulmayaan wafuud ka socda wadamada Qatar, Mareykanka iyo Turkiga kuwaas oo ka qayb galaya wada xaajoodka aan tooska ahayn ee u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo sidoo kale dhinacan la yiraahdo Israa'iil oo si weyn hadda dooda culus u wada. wadamada Masar iyo Qatar wafuud ka socotay oo shirka Sharm el-Sheikh joogta maadaama ay dhexdhexaadiyaal yihiin waxay la kulmeen dhinacyo kala duwan oo Falastiiniyiin ah oo ay ka mid yihiin Islamic Jihad, jabhadda shacbiga Falastiiniyiinta iyo dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Xamaas. saddexda jabhadoodba waxa ay fadhiyaan madasha iyagoo ka gorgortamaya sidii loo soo gabagabayn lahaa colaadda halkaasi ka taagan. wakaaladda wararka Turkiga Anadolu News Agency ayaa ku waramaysa wadahadal heer sare ayaa Arbacadan ka soconaya magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar halkaas oo Masar iyo Qatar ay kulan gaar ah ku leeyihiin wafuud ka kala socota Washington iyo Tel Aviv kadib markii ay ku kulmeen wafdiga kooxdaasi ee Falastiiniyiinta ka socday oo markan doonaya in si dhab ah loo wajaho xaaladda dhabka ah. sida uu sheegay telefishinka Al-Qaahira al-Ikhbaariya kulamadu waxa qayb ka ahaa maalintii saddexaad wada xaajoodyada tooska ah ee u dhaxeeya dhinacyada mas'uuliyiin sarsare oo diiradda lagu saaray arrinta maxaabiista iyo waliba ka bixitaanka Israa'iil ee marinka go'doonsan. warbaahinta Masar waxay sidoo kale sheegeen in dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar ay galeen kulamo wada tashi ah oo ay la yeesheen wafuudda Mareykanka iyo Israa'iil kadib kulan markii ay la yeesheen dhinaca Falastiiniyiinta balse faahfaahin dheeraada lagama bixin nuxurka wafuuddaasi ay la kulmeen ujeedooyinka miiska la isla soo saaray iyo waxyaabaha rasmiga ah ee hadda si dhaba loo wajahayo. telefishinku waxa uu intaa ku daray in kulankii loo ballansanaa subaxnimadii uu soo idlaaday maanta isla markaana dib loo bilaabay galabnimadan wada hadallo kale oo dheeraada iyadoo la xaqiijinayo in jabhadaha kala duwan ee Falastiiniyiintu ay dagaalka haatan qaybta ka yihiin aan wada hadalkan qaybta ka yihiin. wararku waxay sheegayaan in kulamada ay ka qayb galayaan mas'uuliyiin sarsare oo ay ka mid yihiin Xasan Rashaad taliyaha sirdoonka guud ee Masar, Sheikh Cabdiraxmaan bin Cabdiraxmaan Al Thani oo ah ra'iisul wasaaraha wadanka Qatar ahna wasiirka amuraha dibadda, Ibrahim Kalin oo ah madaxa ugu sareeya sirdoonka wadanka Turkiga, Ron Dermer oo ah wasiirka wasaaradda istiraatiijiga ee Israa'iil, Steve Witkoff iyo Jared Kushner oo labadaba matalaya dhinaca Mareykanka. Kushner waxaa sodog u ah Trump
waxaana xiriir suka ula leeyahay Israel. dhinaceeda Falastiiniyiintu waxay codsadeen habraacyo muhiima in la isla qaato ka hor inta aan si rasmi ah loo waajihin in dagaalkan la soo gabagabeeyo oo xiisada si aada loo eego. iyadoo dhinacyada kala duwan ee ka hadalka arrimaha shirka uu hadda maraya meeshii ugu adkay, waxaa soo baxaya warar kale oo muujinaya madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump inuu haatan ku bilaabay cadaadis diblomaasiyadeed oo adag ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, lana leeyahay waa muhiim in shirkan aan lagu cayaarin oo miro dhalkiisa uu noqdo wax wanaagsan oo mustaqbalka gobolkan jihayn karaysa. sida ay ku warantay majallada The Politico ee ka soo baxda Mareykanka ayaa saraakiil Israa'iiliyiin waxay u xaqiijiyeen in hadda Tel Aviv ay wajahayso cadaadiskii ugu badnaa oo ka imanaya Washington. Trump waxay u muuqataa in uu doonayo in colaaddan la iska soo gabagabeeyo maadaama ay ku dheeraatay qudhiisana uu raadinayo in jaa'isada ama abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize-ka uu ku guulaysto. madaxweynaha waddanka Masar General Abdel Fattah al-Sisi oo ay hadda u soo ifayaan ififaalo ku aadan in nabad laga gaari karo dagaalada bariga dhexe gaar ahaan magaalada go'doonsan ee marinka ku taala ayaa casuumaad u diray madaxweynaha waddanka Mareykanka, waxana uu ku yiri waa inaad imaataa Sharm el-Sheikh oo qalinka wax lagu saxiixayo aad dacalka haysaa si Israel looga helo in dagaalkan ay joojiso oo ay ka go'an tahay inay nabad gasho. sidaas waxaa qoray wakaaladda wararka Anadolu ee waddanka Turkiga. madaxweynaha dalka Masar Abdel Fattah al-Sisi ayaa sheegay in wadaxaajoodka aan tooska ahayn ee ka soconaya magaalada Sharm el-Sheikh ee u dhaxeeya xulufada iyo wafuudda Falastiiniyiinta iyo Israel ay u socdaan si togan, isla markaana ay natiijooyin wanaagsan ka soo baxayaan, isla markaana uu ku casuumay madaxweyne Trump inuu ka soo qayb galo xafladda saxiixa heshiiska xabad joojinta halkaasi lagu gaarayo. Sisi ayaa hadalkan ka jeediyay Arbacada inta lagu guda jiray xaflad lagu qabtay bariga magaalada Qaahira oo lagu daahfurayay goob cusub oo akademiyadda booliiska ah oo ay ka qayb galayeen cutubyo cusub, halkaasina lagu doonaya in lagu layliyo. madaxweynaha Masar wuxuu yiri wadaxaajoodka Sharm el-Sheikh waxay u socdaan si wanaagsan oo rajo leh, taas oo abuuraysa dadaallo nabadeed oo gobolka bariga dhexe. isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu intaa ku daray waxaynu casuunay madaxweyne Donald Trump in uu yimaado Masar si uga qayb galo saxiixa heshiiska xabad joojinta. haddii la gaaro aad bay u fiicnaan lahayd joogitaankiisa munaasabadan, waayo waa cidda kaliya oo wax damaanad qaadi karaysa marka Israel loo yimaado. tan iyo isniintii fiidnimadii laga soo gudbay magaalada Sharm el-Sheikh ee waqooyi bari ee dalka Masar ayaa martigelinaysa wadaxaajoodyo aan toos ahayn oo u dhaxeeya Falastiiniyiinta oo diiradda lagu saarayo fulinta qorshaha Trump si loo soo afjaro colaadda ka taagan marinka oo dad fara badan oo 65,000 kor u dhaafaya ay ku geeriyoodeen, halka ku dhawaad 200,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. waxa ugu weyn ee hadda laga gorgortamayo waa 3 qodob oo muhiim ah: joojinta dagaalka, fasaxidda gargaarka, ka bixitaanka ciidamada Israel iyo qodobka ugu weyn oo ah isweydaarsiga maxaabiista. akhyaarta nala socotay qodobo kale oo xiiso leh ayaan idin hayaa oo soo socda.